waxaa Facebook ku aragtaa page shacbiyad badan leh isla markaasna falal xun oo mar habaabinaya dhalinyaradiina maskaxda ordonka leh ayadoo si dheertahay magaca uu yahay mid kale xun oo adigu alla yaabantahay ama si aala amakaagsan tahay sida uu ku helay ciwaankani asagoo saan u xun boostiyihiisa ama fiidiyoyihiisa uu ku helay followers aad iyo aad u badan. Fiidiyogana waxaan ku ogaan doonaa waxa sababay in page-kan saan u kacaan isla markaasna aan uga dhigleen kuwa aanan jirin. laakiin intaan gudaha u gelin muuqaalkan fiidiyogan like saar. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Guys, kusoo dhawaada channelkan Cabdimajiidkiina oo walaalkan Cabdimajiid oo idin leh waqti wacan oo wanaagsan. Waxaan rajeynayaa sida oo caafimaad qabo inaad caafimaad qabtiin. Fiidiyoga intaan gudaha u gelin waxaan ka codsanayaa fiidiyoga inaad like saartid, sidoo kale channelka subscribe saartid, sidoo kale fiidiyogan aad share gareeyid haddii ay suurtagal tahay. aan gudaha u galno muuqaalkan ayaan usoo diyaariyay kadib markii aan la yaabay sida adinkuba aad ula yaabantiin waxyaabaha qaar ee ka socda social media gaar ahaan Facebook. waxaad arkaysaa boostiyo xunxun aad u jeed inay xun yihiin isla markaasna helaya shacbiyad badan ama falcelin badan oo dadka ka soo dhiibanayaan adiguna aad la yaaban tahay sida uu ku helay. maxaa sababa marka waxaas? badanaa page-ka saas oo kale ah isla markaasna gudaha markaad u gashid aad arkaysid in followers badan oo haysto. badanaa waxay sameeyaan dadka qaar ee page-kaas leh waxay asal ahaan usoo sameeyeen page-kan markay soo bilaabayeen. page-kan ayay ku abuurayaan ama ku sameynayaan magaca qof kaloo caan ah oo isla markaas dadka ay aaminsan yihiin. isla markii magacaas ay ku abuuraan waxay sameynayaan boostiyo aad iyo aad u qurxoon oo wanaagsan ay soo dhigayaan. markay soo dhigaan oo xitaa ay suurtagal tahay qofka page-kan ay ku magacaabeen haddii uuba Facebook page ku lahaa in asagoo boostiyadan soo dhigi lahay. dadka ayaa arkaya boostiyadan aad iyo aad ku qurxoon iyo maxaa la dhahaa qofkan ay taageersanayaan oo meesha magaciisa ka muuqdo. mar walba wax soo dhiga like u saarayaan fiidiyoga page-ka followerska aad u kordhayo. markuu aad u kordho oo ay helaan followers aad u badan waxay sameynayaan magacii ayaga ay rabeen ama magaca ayaga ay lahaayeen oo suurtagal tahay lana hubo inaysan ku heli lahayn followerska hadda ay heleen oo kale ay ku magacaabayaan magaca way ka bedelayaan. isla markaasna waxay bilaabayaan falalka xun ee ayagu ay ku dhaqmayeen ama ayagu ay soo dhigayeen. adigoo marka maxaa la dhahaa iska yaaban oo Facebook saddex wareegaya waxaad arki kartaa boostiyo qaar ama page qaar oo qaraxsan iyo waxay ku dhaqmayaan aad la yaaban tahay. marka saas sababta badankood fiidiyogan waxaan ku baranaynaa marka sideen ku ogaan karaa in page-kani uu awal hore magacyo ka duwan magaca hadda uu leeyahay uu lahaa isla markaasna la soo bedbedelay si awal loogu talagalay in la helo followers badan kadibna magacyadan kale loo soo bedelay. waxaan ku baran doonaa sidaan soo socoto. akhyaarayaan nagulin ku daaline aan isla aragno hore marka Facebook aan kusoo dhufanaynaa. Facebook markaan kusoo dhufano searching-ka tagaynaa. marka hadda waxaan ku tusayaa hal ciwaan aan ku tusayaa ciwaano kale aan tusayaa oo sidoo kale isbedbedelay. ciwaanka marka qof shakhsi ah marka waxa waaye waan qarinaynaa saa ujeedinba laakiin muhiimadda gaarka meeshaan ka leebsa idin tusaa. meesha muhiimadda gaarka saaran waxa waaye meesha ujeedin waa idin muuqataa waa page transparency. meeshaan page transparency-ga ayaa waxaan ku dhufanaa qaybta hoose see all-ka markaan ku dhufano waxaa inoo soo bixi doono shaashada noo soo bixi doonto. shaashada marka meesha ay ku qoran tahay page history ayaa waxaa kusoo aruurayo waqtiyada la bedelay magacyada lagu kala bedelay aa kusoo aruureedo. marka saa ujeedin magacyada waa qarinaynaa balse waxaan tusayaa xilliyada la bedelay. marka waqtiyada la bedelay marka saa ujeedin waxay tahay page-ka horta waxaa la abuuray 2 November 2019 31 March 2020 waa la bedelay magaca. 7 December sidoo kale waa la bedelay 2020 24 March waa la bedelay. sidoo kale ujeedin marka meesha wuxuu idin soo dhoobayaa page history-ga ah taariikhyada iyo magacyada la bedelay page-ka. marka adiga hadhow maskaxa leedahay qofka haddii magaciisa magac waayo kale ku bedelo iska caadi
laakiin laba magac oo kala duwan oo kale oo tusaale ahaan oo kale maanta maxaa la dhahaa joogo tusaale aan usoo qaadanaynaa farmaajo oo kale beri kamaan markii oo maxaa la dhahaa ayaan kala joogana hebelkaa kale ku magacaawdo ayaan kale marka qofkaas oo kale waxaa waaye qof followers-kaas inuu siyaado rabo sidoo kalena maxaa la dhahaa maalin walbana ujeedo gaar ah ama fikrad gaar ah oo ay suurtagal tahay in qolo iskaga soo horjeedinayo inuu sheeg maxaa la dhahaa kusoo gudbiyo meesha balse tusaale ahaan anigoo hadda cabdimajid kiina la dhaho haddaan maxaa la dhahaa 3 bilood kadib aan page-kayga ku qorto cabdimajid haddaan haddana 5 bilood kadib ku qorto cabdimajid official magacayga bisaan wax raacsiiyey anoo mar walba u fikiray macnaha habkaas in ay sheeg aan dad kusoo jiidi karo ama magacaas ila habboon yahay dadka qaar ee caanka ah ayaa aad iyo aad dhib ugu qaba waxyaabaha qaar ay sameynayaan dadka sidaan u dhaqmayo ayagoo magaca qofka uu lahaa hoos u dhigaya isla markaasna dadka qaar ay shacabkiisa ay u maleeyaan waxaan inuu asaga yahay sidoo kale dadyooga qaar ee sameynaya page-kan xun ama sidaan kusoo korinaya page-ka ayaa u kala bixi karo qof lacag ka raadinayo ee wadadan xun ay ka gashay maxaa la dhahaa risqigii iyo dadka qaar oo doonayo in dalkeena ama dad isku dir ay sameeyaan ayagoo marba page-ka magacyo kala duwan ama ururyo kala duwan ama ku magacaabay xitaa qabiilo magacyadooda isla markaasna markuu sameeyo boostiyada qaar ay dadka qaar ay falcelin aad iyo aad kasoo sameeyaan magacii uu ka bedelayo magac kale haddana uu bedelayo asagoo dhinaca kale sida qof kasoo jeedo kala sameynayo marka marin habaabin aad iyo aad u weyn ayaa ka socoto page-ka Facebook-ga waxaan kuu soo diray videogan sidii aad u fahmi lahayd in page-kan la bedbedelo magacyadiisa loola bedelo marba si ha taageerin oo kala laabo flowgaada haddii aad ugu diri kartana riboodka gudbi maxaa yeelay fikrad xun ficil xun ama fariin aan fiicnayn ayaa ka daran hababka qaar ee laisku adeegsado adduunkan aan joogno isla markaasna fariintan xun ayaa sababi karta isku dir kala qaybsanaan iyo burbur akhyaaray waxaan rajeynayaa wax badan videogan ka fahanteen waxaan idinka codsanayaa inaad videogan share gareediin maadaama wanaag badan uu faafinayo ama wanaag badan uu soo gudbinayo taniintaa kulmi doona muuqaalka xiga waxaan leeyahay sidaas nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu